taabuugu waa tubaako farsamaysan oo casri ah waxaa la qiyaasaa inay soo baxday horaantii 1930 iyadoo siyaabo kala duwan u gaartay wadamada adduunka 40 iyo ilbiriqsi ee kasta waxa uu geeriyooday qof saameynta tubaakada sida cilmi baaris la sameeyay ay sheegayso. Hindiya iyo China waxay ka mid yihiin dalalka sameeya aadna loogu isticmaalka badnaa balse sanadihii ugu dambeeyay waxaa si weyn loogu isticmaalayay wadamada soo koraya si gaar ah Soomaaliya oo ay dhibaato fara badan ku hayso jiilka soo koraya ee waxbarashada ku jira. maamulka jaamacada iyo iskuulaad dhowr ah oo ku yaala Muqdisho oo aan tagnay ayaa sheegaya xaalado maskaxdu ay diidayso oo la xiriirta qabatinka balwada taabuuga ay ku sameysay arday wax ka baranaysa goobahaasi. waxyaabaha la yaabka leh ee maandooriyahan lagu arkay waxaa ka mid ah in dumarku ay yihiin kuwa ugu isticmaalka badan marka loo eego ragga sida ay qabaan maamulayaasha qaar. Problemkaas problem dhaba oo jira waay wuxuu ka jiraa jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho wuxuu ka jiraa iskuulaadkii dabcan xitaa marka qaarkood inkastoo ay yar tahay wiilasha inta badan lagu sheego balwadaha haddana waxaa naftigeeda meesha aan ka marayn inay jiraan gabdho isticmaala balwadii taabuuga marka waxaad dareemaysaa problem socdo waaye ardayga taabuuga isticmaala ardayga kale total waa ka duwan yahay waxaa weeye dareenkiisu waa kacsan yahay casharka ma la socdo waa nin mar kastaba cunfi ah oo aggressive oo dagaalsan waana hadii loo sheegay aan qaadanayn maqan ku mashquulsan kaliya hadduu maaragtay mobail haysto inuu mobailka ku ciyaaro fasax been ku weydiinayo musqulaan rabaa iyo banaankan rabaa iyo xanuunsanayo wax noocaasa kama soo shaqeeyo exercise-yada iyo waxyaalaha loo diro casharka la dhigayo ma la socdo kuma koobna balwadani ardayda wax ka barata iskuulaadka oo kaliya balse iyana waxaa jira tiro badan oo heer jaamacadeed ah aadna u isticmaala maandooriyahan dhibaato aan qiyaas lahayn ay ku qabaan macallimiinta iyo xafiisyada qaabilsan arrimaha ardayda maadaama qofka isticmaalahay uu ka tagayo xaaladiisa caadiga ahayd. run ahaantii markii laga hadlo waxaan maandooriyahan loo yaqaan taabuuga waa wax run ahaantii guud ahaan waddanka ka jiro qaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed dadka wax baranayo ka jaamacad ahaan xogta ugu weyn aan ilaa hadda aan hayno waxa waaye inaan aragno astaamo ku saabsan in ardayda isticmaalaan oo fasaladii iyo meelaha musqulaha oo kale markii aad tagtid ku arkaysa bacdi laga isticmaalay marka way jirtaa arintaas way isticmaalaan ardayda. waalidiin fara badan ayaan ku baraarugsanayn in ubadkoodu ay isticmaalaan balwadan ayna qabatimeen goob kasta iyo xilli kastana ay daanka ugu jirto iyagoo aaminsan in la'aanteed aynan waxba qabsan karin sida in imtixaanaadka goobaha waxbarashada aysan ka kaysan karin natiijo wanaagsan. taabuuga sideedaba waxaa ka daran oo xataa anigu aan arkay si faashil ah aan u arkay xashiishada oo ay iyagoo uniformkii qaba ay ka iibsanayaan suuqyada dhalinyaradu marka aad iyo aad waxaan aad uga xumahay inay noqdaan hoygii waxbarashada oo lagu farxay meel lagula dhuunto daroogada oo qofkiiba aan xog laga haynin ilaa salaadii uu baxayaa jaamacadu ku aaday ama iskool ku aaday xilli waqti jiifa ayuu ku imaanayaa asagoo kugu warbixinayo inuu iskool ka yimid ama uu jaamacad ka yimid waqtigiisa ugu badnaana oo ku lumiyay taabuu iyo tubaakada oo kale oo xashiishada iyo waxyaabo kale oo badan. ma jirto qof ka mid ah dhalinyarada isticmaasho oo ku sheegi kara waxa uu ka helo si qayaxan balse qaarkood ayaa si hoose kugu sheegaya inay ka helaan awood dheeraad ah oo jirka iyo sidoo kale firfircooni iyana dheeraad ah. tiro badan oo ka mid ah dhalinta isticmaasha fahan buuxda kama haystaan cawaaqib xumada ka dambaysa balwadan ay sida fudud u cantuugayaan balse waxay si uun qalbiyada ugu hayaan inay tahay wax laga gambado ama ay qalad tahay isticmaalkeeda. Sucaad Cali Axmed waa ardayad ma isticmaasho iyada taabuugan laakiin waxa ay ka wareysaa saaxiibadeed oo isticmaala balwadan waxa ayna sheegtay in had iyo goor ay kaga digto saaxiibadeed ayna ka waaniso khatarteeda. ma run ahaantii aniga kula hadlay araggeeda sida u taalo ma aqaani laakiin waxa ogahay in qofka inta uu gashantaa ka bacdina hadaa la hadlaysid oo si kale oo yahay waxa kamid ah qofka marka aad u hadlaysaa laakiin in adeeg iyo wuxuu kugu soo galaa qarac markaas ogaanaysaa qofkan inay daroogo ku jirto daroogada markay ka baxdo wuxuu ma dhan kula hadlay hadana ma ogo dhibaatada jirtaas waa in dad badan oo kala waaniyay oo waxbarasho jaamacad dhigtaan runtii inta kuma soo koobi karo wayna farabadii. in badan Soomaaliya waxaa dhibaato ku hayay balwado kala duwan oo ay ka mid yihiin qaadka, sigaarka, shiishada ama badeecada iyo tubaakada oo bulshada xal looga la'aa balse sanadihii u dambeeyay waxaa ku soo kordhay balwada taabuuga oo ka sara martay kuwii hore ee jiray.
waxaa jiro fariimo iyo digniino badan oo marba marka ka dambeysa dhaqaatiirta caafimaadku ay ka soo saarayaan dhibaatooyinka muqaadaraadka si gaara taabuuga oo mustaqbal xumo u horseedaya dhalinteena aadka u isticmaasha waxay geysataa dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadka la xiriira haba ugu badnaato maaragtay maskaxda maaragtay ha ku xigto maxaa la yiraahdaa lunta ilaa iyo maxaa la yiraahdaa habdhiska loo yaqaano oral cavity oo maaragtay ilkihii ciridkii iyo maaragtay ay soo galayaan waxay kaloo dhibaato u geysataa xagga dheefshiidka waxay kaloo dhibaato u geysataa xagga wadnaha waxay kaloo dhibaato u geysataa habdhiska neefmareenka waxay kaloo dhibaato u geysataa maaragtay keliyaha waxay kaloo dhibaato u geysataa maxaa la yiraahdaa kaadi haysta dhalinyarada isticmaalaysa waxay ku keentaa aakhirka inay yacni maxaa la yiraahdaa noqdaan dhalinyaro maaragtay ka curyaama maskaxda baashaan yacni qofkii la qabsada maaragtay wuxuu u baahnaanayaa ayada la-aanteeda ma socon karo saabsatay halka caadi maano no idib saabta buu waysaa maano idib saa soo gudaysaa halka xaq waa 2,000 niyo shan xabisay maxaa laga rabaa nus dollar ku tura isi saxay fudud maxana gal rabaaye faxfaxna waa qalaysa madaxa yaabay masi aywa baalkan aad u jeedaan waa balwada loo yaqaan taabuuga oo ay isticmaalaan dad badan oo bulshada kamid ah si gaar ah ardayda wax ka barato goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Muqdisho helistiisa macno badan kuma fadhido waxa uu igu fadhiyaa qiimo dhan 2,000 shilinka Soomaaliga ah waxa laga heli karaa goobo badan oo magaalada ku taala laakiin ogaw isticmaalkiisa oo kugu batahay waxaad ku weyn kartaa caafimaadkaaga oo ku adkaanaysa in dib badan aad uga soo kabato waxa uu saameyn ku leeyahay caafimaadkaaga maskaxdaada is horumarka bulsho ee aad sameyn lahayd ama si gaar ah nafsadaada aad sameyn lahayd waa dhibaato aadan dareemi karin helistiisa maadaama ay fududahay oo si fudud oo kaliya aad daanka ku gashanaysaa laakiin dhibaato fara badan aad ka dhaxli karto maxamed cumar dhaqane goobjoog TV Muqdisho Soomaaliya